رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دواذا شغريمي جانل. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar, Allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunyo meelsan leh, aakhiro janno leh inuu ina wada siiyo dhammaanteena. aamiin aamiin aamiin. maanta waxaan kuu soo gudbinayaa calaamadaha lagu garan karo jinni al-caashiq midka loo yaqaano, calaamadaha lagu garan karo iyo ma garanaysaye waxyaabaha lagu cilaajiyo ayaan kuu soo gudbinayaa biidni illaahi alkariim. jinni caashiqa cid kasto ma qabto, dad qaar ah ayaa qabaan. naagta la qabo way qabi kartaa, gabadha aan la qabin way qabi kartaa, garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato. nimanka way qabi karaan, naaga ha qabaan amaba yay qabin way qabi karaan oo way lahaan karaan. astaamooyinka lagu garto ayaan rabaa inaan maanta aan kuu soo gudbiyo biidni illaahi alkariim, iyo qaabka lagu ogaan lahaa iyo wax lagu daaweyn lahaa. si fiican noo dhuux barnaamijyadan aan soo gudbinayno walaalayaal. haddii aad ka heshaan fadlan subscribe dhaha, like-tan inoo saara, gambayalkana furta si barnaamijyada aan soo wadno ay idin soo gaaraan. haddii asxaabteena hore noola joogay aad ka mid tahayna waxaan kaa codsanaa in aad like-ta sidii roobka aad inooga yeesho biidni illaahi alkariim. haddaba yaan war idinku daalinin, barnaamijkeena aan hore u sii galo. waxaan ku dhahay maxaad ku garan kartaa jinni al-caashiq midka loo yaqaano ama mas al-caashiq midka loo yaqaano? waxa weeyaan waa qof jinni jeclaada isla markaasna had iyo gooraale ka dhigto naagtiisa amaba ka dhigato ninkeeda. ilaa naagaha niman ayaa ma garanaysaa jeclaanaya oo jin ah way ka adeegtaan. sideed ku garan kartaa in jinni caashiq uu ka adeeganayo? nimankana naag jinni ah ayaa caanshaqayso, saas oo kale way ka adeegataa. sideed ku garan kartaa in marka naag jinni ah ay ka adeeganayso? caynkaas aad ku garan lahayd ama qaabkii aad ku garan lahayd ayaan ma garanaysaa aan rabaa factore inaan kuu soo gudbiyo. marka hore riyooyin ayaad ku arkaysaa, riyooyin ayaad ku arki kartaa. riyooyinka aad arkaysid waxaa ka mid ah gabadhu waxay arkaysaa maxaarimteeda oo howlgal la samaynayso ama jimaac la samaynayso ayay ku riyoonaysaa, amaba naag ayaa u imaanayso een aqoonin ma garanaysaaye waxyaabahaas foosha xun amaba sida zanada oo kale amaba jimaaca oo kale ayay la samaynaysaa. yacni waxaa ku badan riyada jimaaca ayaa ku badan. aqaaribadeeda ha ahaadaano, walaalkeeda oo kale ay arki kartaa, adeerkeeda ay arki kartaa isagoo jimaacayo, abtigeeda ay arki kartaa. gabadha caynkaasi haddii ay ku badato ay aragto oo gabarna ay tahay oo isla markaasna aan la qabin ama garoob ha ahaato, waxaad qabtaa aljin al-caashiq ayaad qabtaa oo jin ayaa ku jeclaaday oo ma garanaysaaye si gardaro ahna ma garanaysaaye jirkaaga u isticmaalaya. marmar waxaad arkaysaa riyooyin cabsi leh oo dhinaca jimaaca ah ayaad arkaysaa, iyo wixiiba la mid ah. jimaaca ayaa kugu badanayo. gabadha la qabo haddii ay aragto ayada iyo ninkeeda ay isku fiicnaan jireen, ninkeeda ay nacdo, yacni niyadba aysan u haynin, hamiba aysan u haynin, meel gooni un ay rabto inay jiifato, inay fakirto un ay rabto, riyooyinkaas ley ay ku soo noqnoqdaan ay jeceshahay, saasoo kale ayadana waa lagu jiraa. waxaa kaloo ma garanaysaaye calaamad u ah xagga dambe ayaa lagaaga taagaya wax nabar lagaaga dhufanayo oo kale ayaad noqonaysaa, sida yacni wax kugu soo taagmaayo dhag ayaad dareemaysaa. xanuun aan ahayn, mararka qaarkood meel dheer ayaad ka dareemaysaa. xagga dambe
amaba meesha laga saxaroodo ayaa fallaaro lagaaga soo taagaya oo meel dheer ah. mararka qaarkoodna xagga hore ayaa fallaaro lagaaga soo taagaya oo ma garanaysaa dhag dhag aad dareemaysaa, waad yaabaysaa, marmar xitaa waad la boodaysaa, waxaad leedahay maxaa ku galay ayaad isdhehaysaa. haddii aad calaamadahaas oo kale aad isku aragtay, ogow waxaad qabtaa jinni caashiq ayaad qabtaa. wiilashana waa saas oo kale, nimankana waa sidaas, naagahooda ayay nacayaan. ii sheeg adig waxay jeclaanayaan inay gooni ay u baxaan, ma garanaysaa naagtii ma rabaan, dhinaca gogosh ayaan ka hadlayaa, ma jecla, gooni ayay rabaan. mararka qaarkood iyaga oo xaas leh ayay caadadii gacanta ayay ma garanaysaa kasii jeclaanayaan. calaamadahaas oo kale haddii aad isku aragto wiil yahow, adigana waad qabtaa oo jinni caashiq ee sida dhaqsaha isaga dawey. waxaa kaloo qabtaa nabarada oo yacni falaaraha lagaaga soo ganayo xagga hore iyo xagga dambe, adna waad leedahay. mararka qaarkood waxaad leedahay yacni meesha kaadida maxaa kaaga soo baxayo, yacni way ku boodboodaysaa, maxaa daare aad is leedahay. mararka qaarkood xagga dambe saasoo kale nabar ayaa lagaaga soo dhufanaya amaba falaar ayaa lagaaga soo dhufanaya, way ku dhaqdhaqaaqaysaa, waxaad leedahay maxaa kugu dhacay, waad yaabaysaa. sida gabadha baan usoo sheegay, marmar xitaa waad boodaysaa adiga qudhaada, yacni qof damqanayo oo kale ayaad noqonaysaa. waxaa laga yaabaa inay kugu badato, waxaa laga yaabaa in aysanna kugu badaninna way dhici kartaa. marka hadbo qaabkii lagugu badan yahay unbay kugu badan tahay falaarahaas oo kale, amaba nabaradaas amaba ootimahaas lagugu soo taagayo. sida lagaaga yaryahayna way kugu yaryihiin. riyadana way kugu badan tahay sida lagugu badan yahay, way kaaga yar tahay riyada sida lagaaga yaryahay. marba hadba culeyska ku saaran ayay ma garanaysaa ka turjumaysaa. calaamadaas waa calaamadihii lagu garan karay waaye. haddii calaamadaas aad isku aragto, fadlan waxaad aad samaynaysaa gacantaada midig ayaad ma garanaysaa farteeda ayaad taagaysaa, sidaas ayaad u taagaysaa, farta saas ayaad u taagaysaa. aayadan aniga aan kuu soo wado ayaad akhrinaysaa. fartaada markaad taagto, sidan aad u taagto, aayadahan aan kuu soo wado markaad akhrinayso, fartaada dhaqaaq ayaad dareemaysaa. haddii fartaasi ay dhaqaaqdo waa lagu haayaa. fartaasi haddii ay dhaqaaqdo, dhaqaaq adiga aadan ugu talagelin, sida taxiyaadka oo kale aadan dhaqdhaqaajinin ama saas aadan dhihin, sidaan soo uma taagnaa. haddii aayadaha aad bilowdo ay xarakaad ay bilowdo, jinni caashiqa waad qabtaa ee tijaabi. aayadaha marka waxaa weeyaan, gacanta midigna waad taagaysaa, farteeda gacanta bidixda ahna waxaad saaraysaa qalbiga ayaad ma garanaysaa gacanta ka saaraysaa. markaas waxaad leedahay acuudu billaahi min ashaytaani الrajiim إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عادك الكحت واتكبو ذيسا سدح طوك مكان أخرسو. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. sidaas ayaad leedahay. hadda aan kula hadlayo qofka qaba kasta uu idaawanayo oo keli ah,
jinnul caashiq uu socdaa wuxuu u gudbayaa dhankaaga bidix ayuu u gudbayaa dhanka bidix lugta bidix xaggeeda ayuu ka baxayaa hadda markaan suuradahan aan akhrinayo qofka jinnil caashiq qabo xibnihiisa meel qaarkood waa dhaqdhaqaaqayaan garbahaada ha ahaadaano bawdiyahaada ha ahaadaano ii sheeg adiga lugahaada ha ahaadaano yacni jirkaaga meelo ka mid ah waa uu dubaaxinayaa waqti xadarkan aan kula hadlayo haddii saas adiga aad dareemaysid ayaad ku daaweynaysaa haddaba hoos waxaad inoogu soo qoraysaa haddii jinnul caashiq adiga aad qabtay oo lagaaga daaweeyey suuratul buruuj suurad aan ahayn lagaaga daaweeyey waad noo soo gudbin kartaa hoos inoogu soo qor in magaran dad badan waxay sameeyaan maasha Allah waxyaalo badan ay ku caafimaadeen ayay inoo soo gudbiyaan si aan anagana ummadda kale aan ugu gudbino haddaba maadaama suuratul buruuj aan kuu soo gudbiyey suuradda oo kaamil ah weel intaad ku tufato waad cabi kartaa 3 tooka ayaad ku tufanaysaa weelka waad cabaysaa wajigana waad marsanaysaa aayadahan qaabkan aan kuugu sheegana waad ku ogaan kartaa kaliya markaad ogaato ka bacdi suuratul buruuj ayaad weel ku tufanaysaa 3 joor ayaad ku tufanaysaa maalinkaas waad isticmaalaysaa 7 bari ayaad saas sameynaysaa biidni illaahi alkariim ilaahayna waa kuugu yani shaafinaya waa kuugu caafinaya idankiisa ayuuna kuugu caafinaya kuugu shaafinaya biidni illaahi alkariim intaas ayaan maanta idin soo gudbinaya waxaan haleeyay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen ilaahay hanaga dhaafo waxaan hagaajiyena famin allah ay ka ahaadeen dhamaantan ajr allah naga siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh